gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Filish ayaa howlo kormeer ah ku tagay xarunta gaadiidka dawladda hoose Xamar halkaasi uu kula kulmay madax qeybeedyada iyo howlwadeenada ka howlgala xarunta gaadiidka dawladda hoose Xamar. Gudoomiye Cumar Filish ayaa warbixino kala duwan oo quseeya ciladaha kala duwan ee haysta gaadiidka dawladda hoose Xamar ee loogu talagalay in lagu qidmeeyo shacabka caasimadda. waxa uu ka dhageystay agaasimaha gaadiidka iyo sidoo kale agaasimaha gurmadka degdega ah ee musiibooyinka iyagoo soo gudbiyay gaadiidka heeganka ugu jira u qidmeynta shacabka caasimadda iyo kuwa ciladeysan ee u baahan in dib u habeynta lagu sameeyo. Gudoomiye Cumar Filish waxa uu balan qaaday in maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose Xamar ay dardargelin gelin doonaan adeegyada kala duwan ee lagu xoojinayo bilicsuulinta caasimadda. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa kormeeray qeybaha ay ka kooban tahay xaruntani isagoo qiimeynayay gaadiidka kala duwan ee xaadirka ku ah xaruntani, kuwa hagaagsan iyo kuwa u baahan in dib u habeyn lagu sameeyo. sidoo kale duqa magaalada Muqdisho ayaa kulan la qaatay howlwadeenada kala duwan ee ka howlgala xarunta gaadiidka dawladda hoose Xamar, waxa uuna ka dhageystay baahiyaha ay qabaan iyo sidoo kale xaaladaha ay ku shaqeeyaan, isagoo kula dardaarmay in ay xoojiyaan u qidmeynta shacabka iyo gudashada waajibaadkii loo igmaday. waxa uuna balan qaaday gudoomiye Cumar Filish in maamulkiisa uu wax ka qaban doono caqabadaha kala duwan ee haysta howlwadeenada ka howlgala waaxda gurmadka degdega ah iyo sidoo kale waaxda gaadiidka ah, kuwaas oo habeen iyo maalin ka shaqeeya arrimaha bilicsuulinta caasimadda iyo arrimaha xalinta maareynta musiibooyinka. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.